waxaanu leenahay walaalkay cabdillaahi siciid dani madaxweyne tahay annaga ka dhignay adigu gurigaaga kalabaadan imaan xilka waa lagu magacaabay waxa lagu magacaabay inaad wax wanaajisid inaad wax ku dibindaabisid ama wax ku Soomaali aad ku dibindaabisid saaxiibkooba aan lagu magacaabin run baan ku sheegay nin baa wuxuu yiri laba nin baa dadka aan caay jirin oo nin macaan buu ahaa maalintii dambe geel isaga iyo wiil uu dhalay baa geel xirgeeyay markaasuu maalintii dambe geel iyo cabay iyo walba araka tiri markuu araka tiri ayuu yiri qaalintii ilaahay bilood baa maqan markaasuu aabbo goorma qaalinta ugu dambeysay wuxuu wallahi kalkii hore ila joogtay baan u malaynayaa dadka ma caay jirin qoodhay xirada ceeb baa ka raacday buu yiri qoodhay iyo xiraday ceeb baa ka raacday hasha aad goortay soo gaadhay aad garaweyday waxaan ku leedahay masiirka Soomaaliyeed iyo Puntland markhaati waxaanu ka nahay adeer sida ay u muuqatay in ceeb ka raacday laakiin daba qabashaad leedahay wali kuma naanicin waxaan ku leenahay walaal annaga xanaanada kaba taliyo reali kaba nihin waxaanu la hadafnahay sida maamul goboleedada kale ay xor u yihiin oo ay u doonayaan taladooda iyo masiirkooda inay u madax banaanaadaan inay Soomaali ku matelaan inay madaxtooyada iyo siyaasada Soomaaliyeed sida ay u socotay inay ula socdaan baan doonayna waxaan rabaa halkan inaan uga diro ummadda Soomaaliyeed baaq badihii iyo dhulkii la inagu haystay oo Kenya ay inagu haysatay inaanan kana kaaftoomahayn haddii nala ay maxkamadda xataa noqoto dhinac kale inaan u diyaar garoobayno oo aanan u kala harayn wiil iyo gabar iyo oday iyo dhexdo noo xiran tahay taa waxaan ogeysiinayaa ummadda Soomaaliyeed nimanka heeg jooga oo uu ra'iisul wasaare ku-xigeenku u horeeyana waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waajib waxa gudanaysaan in Suuriya oo xaq ah ilaahay idinku guuleeyo maanta oo kale waa maalintii la kala bixi jiray oo dhowr magac dadku raggu kala yeelan jiray marka magaca ugu fiican ay yeelataan baan idin rajaynayaa hadii ilaahay idmo intaa waxaan kaga gudbayaa badda ajandaha aanu isugu nimi oo halkan wuxuu ahaa Soomaali doon baa la yiraahdaa Soomaali doon waxaynu u diyaar garownay Soomaaliya meel ay joogtaba waxay u diyaar garowday doorashooyinkii loo diyaar garoobay oo ummaddu ay diyaar u tahay waxaan u malaynayaa hadda in aan la kala maqnayn maamul goboleedadii madaxweynihii Soomaaliya barlamaankii hooyooyinkii guddiga doorashooyinka in lagu dhan yahay oo aan meel kale jirin waxaan rabaa maadaama aan cuqaasha gobolka Puntland ka mid ahay inaan halkan baaq uga jeediyo laba nin oo aan anigu odayaasha aan nabadoonka u ahaya oo xalane ku jira inaanu yiraahno annagu idinma dooran xalane waxaanu idin dooranay Soomaaliya in ay isu keentaan waxaanu idin dooranay ayaha Soomaaliya in ay ka shaqeysaan waxaanu idin dooranay isu keenid Soomaaliya ah haddii xalane haddaa gasheen xalane waxaanu ku ogeynimo safaarada wakiilka ah oo ajnabi ah haddii ciidankii aasas ka qaadeen oo ay idin ilaalinayaan maanta Amazon waa wax aad looga naxo waa wax laga yaxyaxo waa waxaan Soomaalinimo ahayn waa waxaan dadnimada ku jirin waxaanu leenahay saa naguma matashaan hadday Puntland tahay iyo hadday Jubbaland tahayba naguma matashaan saas labada ninba waxaan ahay nabadoonkoodii odayaashoodii baan ahay xaq baan u leeyahay wixii xun inaan ka hadlo wixii sanna aan ku soo dhaweeyo waxaan leeyahay ka soo baxa meesha ku jiraan dadkii idin doortay baanu nahay cuqaashi baanu nahay dalku doorasho aaday waxa la idinku yeeray ummadda Soomaaliya meesha laga xukumo waa garanaysaan haddii haddaa ka carartaan ciidankiinni oo ka carartaan madaxweynihiinni oo ka carartaan barlamaankiinni oo ka carartaan cuqaashiinni oo ka carartaan hooyooyinkii shalay idin sacabtumayay waxaan u malaynayaa hadda YouTube-ka ku jira aniga iyo xarago iyo in rag codkana weydiinaya baanu hayno ka hadlayay maalintu doorashada ku jiray kood dib uma aragno ninka marbay ka bariiqataa haddii madaxweynaha iyaga baqdina gashay kafaaladiisa anaga qaadayna nabadoonadii baanu nahay madaxweynaha loo hadli karaa haddii dawladda baqdina kaga jidho
وكفارة غادينا مسؤوليتي سوا غادي كرا وعمل لنا مدح وين سودو dadkaaga u imow doorashadii ka soo qayb gal guddiga doorashooyinka soo diyaari annagu hulka ku jidho oo hadda halka aad gashay aad baan uga naxsanahay tan labaad waanu ku darsanaynaa waxa weeye qoor isagoo aan bastoorad sidan buu ka soo degaay laboorka ninka la yiraahdo bahalkii isagoo aan qori ka wadan buu ka soo degaa baqdinta bilada oo baasuukayaasha iyo dabajeexyada faraha badan aad baan uga wasuusanay ma jeclayn inaad soo qaadato annagu dee odayaashii Puntland baanu nahay magaaladu waxaan leeyahay warbelada idinku jidhaa maxay tahay habartii naga hortimaada waxay leedahay war idinku mudinaan cuqaashi ahayn Puntland maxay tahay saskan aad qabtaan oo beladan isugu soo xirxiraysaan ma ku sii fogaan maayo xumaan uma lihi nabadoonkiisi baan ahay inuu wanaagsadaan jeclahay wax wanaaga baan ka doonayaa sharaf iyo qiimo iyo wanaag iyo soo dhaweyn buu iga mudan yahay waxaan leeyahay mudane madaxweyne soo dhawow madaxweynaha iyagii baa tahay sidii aanu ku dooranay garab marin Soomaalina waxaan leenahay hala wada doono Soomaali hala wada doono xilliga ajnabi ay waxay noo yeerin jireen waxaan u maleynayaa waa dhamaatay dawladdii waa taa hore u dhaqaaqday dalkii meeshuu marayo waad aragtaa wiilasha yaryar halkan waxaan uga mahad celinayaa wiilasha yaryar oo ciidanka ah haramad gorgor danab waa ku diirsanay magacooda kor Allah ka yeelo dalkii idinka ka mas'uula adeer aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu labada nin Axmed iyo Saciid marka horeysa tacsi waxaan u direynaa sida aqoonyahanka horeba sheegeen ummadii madaxweynayaasha ka dhigatay markii hore ama Puntland ha joogaan ama Soomaaliland ama Jubaland ha joogaan waa idinka tacsiyeena reer Jubaland iyo reer Puntland labada nin maanta horjoogaha inoo ah marka labaad waxaan xaal halkan uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto falalkii argagixisada ahaa ee falxumada ahaa ay kaga kaceen airportka aadan Cabdullaahi Cismaan ay kula soo degeen hubka ayaan ka raali gelinayaa Soomaalidu meel kasta ay joogto walaalayaal raalliha laga ahaado gaf dhacay weeye waxay ahayd inaan hadda ka hor qabanay laakiin nin walba danbaa dhibtay maanta baan odayaasha iyadu ishelay ummadda Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa doorashooyinka horu socodka isu keenidda wadajirka Soomaaliya ayuu ku saabsan yahay wax gaar ah oo kale kuma saabsana Soomaaliyana uma baahna kala qoqobide waxay u baahan tahay 30 kale sano ayay kala maqnayd oo burbur badan ku soo jirtay waxay u baahan tahay isu keenid iyo isku hayn bay u baahan tahay in uqdad la kala geliyona uma baahna dalku shirkan sida horeba loo sheegay walada badda ku mashquulsan haday dawlad tahay haday shacab tahay iyo kuwa ilaa xalay ilaa habeen hore ilaa durraad meesha irideeda taagnaayo qaarkood aan bagaranayo anigu oo maxkamadda horteeda taagnaayo barafku ka dhacayo oo heesiyay oo calanka sitay waa u hambalyeynayna waxaan leenahay waxa weeye dalkan de awoowayaasheen baa inooga tagay awoowayaasheen way soo dagaalameen waa sidii ay ugu dagaalameen inaynu gacanta ugu haysano dalkeena inagu lahaano ayaa loo baahan yahay cid hadeer qaadan karta inagoo soo jeednana ma jirto haddii wiilasheenu iimaan daraadaan oo wax isdaba mariyaan dee waxaas socon mayso iyagana waxaan leeyahay kuwa caynkaa ku fikira oo yiraahdo deked baan iibinayaa ama waxa weeye waxaan iibinayaa garoon diyaaradeed sida ragga qaarkiis war ka noqda waxaas oo iska daayay tii hore baanu hadeer timirtii hore dab loo waayay buu yiri dhibaatada naga haysato uu jeednaa shalay MOU-gi la saxiixay baa dhibtaas oo dhan inoo geystay araahdu waa baxsan tahay dadka kanu waa dad reer Puntland waa dad masiirkoodii horeyna uga soo taliyay haddana ka tashanaya waa dad baaq diraya marka ugu horeysa waxaanu ka midaysanahay arrinta badda haddaanu nahay bulshaweyntaas waxaanu garab taagannahay oo hiil iyo hoo iyo hantiba ula garab taagannahay arrintaa badda cidda ku hawshaysan iyo sidii aanu ugu gurman lahayn waana ku xisaabtamayaan maal iyo muruq iyo maskax iyo hadafba iyada waanu garab taagannahay kuwa hadeer runtii qiimaha badan oo hawshaa ku loo idmadayna jazakallahu khayr baan leenahay waajib baad haysataan dastuuriya
oo garanaysaa soomaali oo dhan aad u haysaan ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa taariikh idinkana inay idin noqoto soomaaliyana taariikh ay noqoto guusha aad maanta hordhaceedii aanu haddeer aragno idinka ilaahay saasaanu idinka baryaynaa arrinka kale waxaa weeye arrinka masiirka reer puntland waxaa lagu asaasay arrin maskax iyo muruq badan iyo maskax badan gashay waxaa isku yimi ummado fara badan oo deegaamadaa degan oo cid walba ka kooban waxay ku dhisteen nidaamkaas ma aanu doonayna inay cidi ku cayaarto in la iibgeeyo in lagu takarfalo in soomaali lagu dibindaabiyeeyo in nin walba siduu doona uu ka yeelo anagu raalli kama nihin horeyna ugamaanan ahayn haddana ka noqon mayno waxaanu leenahay walaalkay cabdilaahi siciid dani madaxweynea tahay annagaa kaa dhignay adigu gurigaaga kalamaadan imaan xilkaa waa lagu magacaabay waxaa lagugu magacaabay inaad wax wanaajisida inaad wax ku dibindaabiyeysid ama wax ku soomaali aad ku dibindaabiyeysid saaxiibkuuba aan laguguma magacaabin run baanu kuu sheegayna nin baa wuxuu yidhi nin baa dadka aan caayi jirin oo nin macaan buu ahaa maalintii dambe isaga iyo wiiluu dhalay baa geel xergeeyey markaasuu maalintii dambe geel cabay yidhi walbal aaranka tiri markuu aaranka tiriya buu yidhi qaalintii ina heblood baa maqan markaasuu aabow goormay qaalintaa kugu dambeysay wuxuu wallahi kalkii hore inay joogtay baan u malaynayaa dadka ma caayi jirin qoodha iyo xerada ceeb baa kaa raacday buu yidhi qoodha iyo xeraday ceeb baa kaa raacday hasha aad goortay soo gaadhay aad garan weyday waxaan ku leedahay masiirka soomaaliyeed iyo kii puntland markhaati waxaanu ka nahay adeer sida ay u muuqatay inay ceeb ka raacday laakiin dabaqabashaad leedahay weli kumaanaan nicin waxaanu ku leenahay walaal annaga xanaanana kama taliyo raalli kama nihin waxaanu la hadafnahay sida maamul goboleedada kale ay xor u yihiin oo ay u doonayaan taladooda iyo masiirkooda inay u madax bannaanaadaan inay soomaali ku matelaan inay madaxtooyada iyo siisamka soomaaliyeed sida ay u socoto inay ula socdaan baanu doonaynaa ilaahay amarkii bal iyo cilaaqdiisa iyo socod foolxumadiisa iyo cadaalad darradiisa ninkaa warlorskoo dal iyo dadba cunay yuu ku daaban yahay oo macallin u yahay oo afku soo qaada wuxuu odhanaya wargeda ma aragteen hadda weligii ma arag asagii iyo aabbihii midna weligood ma arag wuxuu leeyahay gedo wala eeg haddaan hadda weydiino meesha la yidhaahdo puntland haddii la weydiiyo gobolladii la ohan jiray sool iyo sanaag xagee buu ku og yahay tukaraq oo 30 kilomitir u jirta meesha la yidhaahdo garowge nimanbaa tuurta haysta oo canshuurta iyo xukuumadda iyo maamulka iyo dhulbixinta iyo dowladaynta ku shaqaysta wuxuuna la taagan yahay yaa arkay gada meesha la ohan jiray gada yaa arkay ilaahay amarkii bal dhibaatada intaa la egdaya waxaan marka soo jeedinayaa ilaahay goynaayo waaxidkaa waxaasi ummadda ha ka qabto dalka guud ahaan allah ha ka qabto annaguna haddaanu nahay reer jubbaland qaylo joogta iyo allaha u naxariista iyo tacsi iyo axmed baasaana yeele macno ma keentee rag baynu nahay carradana waa degannahay xoog ogaal baana u nahay kismaayo lafteeda dadka degan marxaladda uu marayo iyo rabitaanka axmed meeshuu ka jooga waynu ognahay aanu ku dhaqaaqna af kaliya lama rabee wixii isbeddel ummadda u keeni lahaa dowlad iyo beel caalam iyo cid kala midna yaanaan ka sugini waa kee baa la yidhi waa inagoona iska yeelyeelayn baa la yidhi aanu u dhaqaaqno insha allahu anayahay beel caalam ee jirtay intiiba waxaad moodaa arrintaasi inaanan loo firfircoonayn marka bal horta ilaahay aanu barino oo ilaahay goynaaye waaxidka ahaa inaga dulqaado wax ka khayr badanna ilaahay ha inoogu bedelo waa laga soo sheekeeyey cadaalad darrada waxaa la yidhi haddaad xumaan iyo cadaalad darro haddaad dhabarka saarato marka dambe ilaahay hortaaduu keenaa baa la yidhi wejigoo ilaahay kuu saaraa waa xaqiiq eraboorka caalamiga ahaa oo caddaan iyo madow iyo caalamkii o dhan uu ka degayey iyo dowladda federaalka ee deegaankeedii oo amniga ugu tirada badan baa ka jirta aan isleena nimanka inta 60ka nin oo staafka ah oo soo xulay baasukayaasha iyo BKM-ka inta ku soo raray yiri anna wa'ikan waa dulmigii baa wajigiisa ilaahay soo saaray dhirtii iyo dadkii uu soo waqba xitaa day asaga waxa la isku tilmaamayaa warlords caalami ah inuu isagii baa isku tilmaamaya hadda ismana oga waxaan leeyahay marka
waxaan xoojinayaa intii ay ka hadleen odayaashii dhaqanka sharafta lahaa ee hortay ka hadlay ee ku aadanayd doorashada Jubbaland midda federaalka xalane oo aad moodo dalkii xukunkiisuba ayada inuu gacanta ugu jiro warkii ay ka soo jeediyeen odayaashii dhaqanka yaanu aqbalaynaa isagaas aanu ku qanacsanahay asagaas aanu ku tilaabo qaadaynaa insha Allah waxaan kaloon ogeysiinayaa beel caalam iyo dowladda federaalka 12 sano dadka reer Jubbaland oo dhibaatada ku socotay hadde waxa la yiri waraaba daalay dirirtiisa loo tagaa waxa suuragal ah hadda dhibaato xun baynu aragnay wax ka sii liita inaanu aragno intaas baanu qaylinayna oo lahay waa waray yaa dowladda yaa beel caalam yaa islaamahay wixii wax ka dhaqaaqan amaanaan arag ilaahay amarkii dulmi un baa sii kordha runtii waxaan baaq u dirayaa Soomaali meel kasto ay joogto dal iyo dibad inay midoobaan inay wanaagga iyo sharafta iyo karaamada dalka iyo dadka iyo diinta ay ka shaqeeyaan arinta ii labaysaa waxay tahay oo shirkayaga ku saabsanayd oo buddig u ahayd inaanu ka hadallo badda Soomaaliya oo maanta hareeraha laga taagan yahay oo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii iyo tiimamkii ku maqnaa ay guulo badan ka soo hoyeen iyo mujtamacii Soomaaliyeed oo tegay maxkamadda Heeg waxaan leeyahay guushaas Soomaaliya way u soo hoyanaysaa insha Allah ta'ala xoolahaas ama baddaas ma baadiyoobayso ilaahay idankiisna in guul laga gaaro baan rajaynaynaa Soomaaliya meel kasto ay joogtana waa hambalyeyn doontaa way soo bixi doontaa wayna bogaadin doontaa taariikhdana waxa gali doona intii ka soo shaqaysay ama xukuumad hore ahaato ama xukuumadda hadda joogta ha ahaatee qodobka ii labeeyaa wuxuu yahay madaxweynaha dowladda Puntland oo wafdi ku yimi oo aanu muddo sugaynay oo maatankiisa bogaadinaynay oo sidii loo dhaqaajin lahaa arrimaha Soomaaliya horyaal iyo geedi socodka doorashooyinka u yimi oo runtii aanan annagu reer Puntland odayaashii Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku taxalluqa Puntland annagoo aanan weliba arkinba madaxweynihii Puntland insha Allah waxaanu baaq ugu diraynaa annagii baa baaq u diraynaa kuwii hadee Puntland joogay iska badaayay annagii Muqdisho joogay baa galabta baaq dirayna baaqaas waxaan leenahay madaxweyne meeshaas aad joogto dad xalane waxa jooga dad ilaashada wadamadooda iyo masaaliixdooda Soomaaliyana intii ay la qaban karaan aanu markasta ku bogaadino laakiin danahayaal iyo waxa inoo yaali caasimadda Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya guryaheena iyo hoteeladeena waxa aan inagu leenahay baytaladu hortaal halka waxa la rabaa inaad ummadaada u timaado inaad dawladdaada iyo magaranaysaa dhulka laga xukumo dalka aad timaado inaad taladii iyo wixii oo horeyna aad wax u qabatay haddana aad rabo inaad qabiyo tidho inaad u timaadaan rabnaa waxaanu rabnaa waxa aanu doonayno inaad nala doontaan rabnaa waxaan marka hore ku hormarayaa Puntland waxaan leeyahay mudane madaxweyne Cabdullaahi Siciidani ujeedooyinka loo asaasay Puntland waa dhinac martay Puntland waxaa loo asaasay 3 qodob kow inaan ka shaqeyno midnimada Soomaaliyeed labo inaan calankii Soomaaliya markii la asaasay 1998 calanka Soomaaliya meeshuu yaalo cid walba way ogtahay in calankii aan kor u qaadno qodobka saddexaad wuxuu ahaa inaan ilaalino lacagta Soomaaliya shilinka Soomaaliyeed oo markaa kunka ugu dambeeyay inaan ilaalino saddexdii qodob idinka ay weydiinayaan xagee marayaan waan garanaynaa meeshay marayaan maanta midnimadii Soomaaliya meeshii uu raadin lahaa wuxuu ka doorbiday inuu hoos tago calankii UN
taa waxaan leeyahay madaxweynahaygii mudane cabdulaahi siciid deni kaa yeeli mayno taa kaa ogolaan mayno haddaynu nahay aqoon-yahanada haddaynu nahay waxgaradka dhallinyaradii kusoo wax ku soo bartay ilaa shahaadada labaad waxaan ku diyaariyey puntland aniga marka ma yeelayo in lagu cayaaro magaca suncadda iyo sharafta iyo karaamada puntland dadweynaha soomaaliyeed waxaan u sheegayaa puntland waa aayihii waa mustaqbalkii waa hooyadii soomaaliya sababtoo ah markay soomaaliya ay baaba'day waxaa back up loo noqday meeshii lagu noqday ee laga soo bilaabay waxay ahayd puntland taa marqaanti doon wey waxaa kaloo aynu hormuud u ahayn inaynu dib u soo celinno caasimadii aynu dib ugu soo celinno dowladnimadii iyo karaamadii iyo sharaftii taasna marqaantimo doonto weeye waa la ogyahay waxaasoo dhan waxaynu u samaynaynay inaynu mar walbaba hormuud u noqonno hogaaminta midnimada ummadda soomaaliyeed taa waxaan leeyahay madaxweynaha cabdulaahi siciid deni lacagta meeshaa dhigtay waa ognahay calanka meeshuu taagan yahay waan ognahay midnimada soomaaliyeedna haddaad ka doorbiday inaad xalano ku xarooto waxaan leeyahay anigu saaxiib baan nahay ka soo bax oo maanta ujeeddadii loo aasaasay puntland hormuud u noqo taasaan oga baxaya qodobka kale ee ummadda soomaaliyeed baaq waxaan u jeedinayaa aan leeyahay annagu haddaan nahay reer puntland ma nihin dad meesha aad dhigteen meesha ay hogaamadeena dhigeen ee dhigteen ma nihin dad ka weyn baan nahay tan kale waxaan ku leeyahay maanta waa ogtiin soomaaliyey waxaan ku dagaalamaynaa waa baddi dhulkii waa ku dagaalanay laga soo bilaabo ilaa axmed gurey ilaa iyo maanta waa ku dagaalamaynay dhulka taariikhdiisa waa la hayaa baddi baan maanta ku dagaalamaynaa nimanka kuukuyada ee leh muxuu ahaa waa dagaalamaynaa adeeryaal anigu waan naqaanaa sida nairobi loogu dagaalamo laakiin idinku ma taqaanin sida loogu dagaalamo muqdisho horta taa ogaada sida nairobi loogu dagaalamo ilaahay waana bari laakiin idinku ma taqaanin sida muqdisho loogu dagaalamo taas waa qodob baan intaas ooga baxaya waana u hambalyeynaya dadka maanta ku heelan badda inay soo dhiciyaan ee maxkamadda habeen iyo maalin u taaganna waxaan leeyahay hambalyo qodobka saddexaad aan kusoo gabagabeynaya waxaa weeye madaxweynaha mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maxamed xuseen rooble iyo maxamed mursal saddexdaba waxaan leeyahay ku dadaala doorashada hala qabto hala dedejiyo ciddi diidan hadday puntland diiddo iyo hadday jubbaland diiddo isimaa jiro aqoon-yahanaa jiro waxgarad baa jiro taasi waa ka gudbaynaa laakiin ha lagu dadaalo sidii doorasho loo dedejin lahaa waana mahadsantihiin